kulanti wanaagsan daawaday dhammaan kooxihii ka socday dalkeena Soomaaliya ee ka qayb qaadanayay tartamadii Afrika way soo hareen horseedii MCC ayaa sanadkan in matale kuwa uu ka qayb qaatay African Qualification iyo tartanka Africa Champion horseedoo guuldaro labadii kulan bala kulantay iyo MCC oo kulankii shalay laga adkaaday ayaa iyaguna soo haray maalinta Britania la filayaa in dalkay dib ugu soo noqdaan haddaba maxaa loo aanan karayaa guuldarooyinka xiriirka ah ee soo gaaraya kooxaha dalka Soomaaliya ka soo baxa maxay tahay sababaha iyo caqabadaha haysta kooxahan waa waxyaabaha aan jecelahay daawadayna 3 daqiiqo soo aadan muuqaalkan ku faaqido magacaygu waa Cabdulle Maxamed xirfadan waxaan ku soo dhex jiray muddo ku dhawaad 10 sano ugu soo dhaw muuqaal amuurahaas ku saabsan faaqidaad dheer ayay u baahan tahay in lagu falaqeeyo sababaha keena guuldarooyinka soo gaaraya maalin walba kooxaha dalkeena Soomaaliya laakiin in yar ayaan jecelahay daawada inaan ku soo koobo waa intuu Ilaahay garansiiyay kooxaha dalkeena Soomaaliya inta badan waxa ka maqan garab istaagii taageeradii ugu weyneed oo si la xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta waa mid caqabada ugu weyn ee qabaan bahda isboortiga markay si toos ah uga hadlayaan arintan wadamada dunida ee hormaray iyo kuwa Afrikaba inta badan xiriirada wadamadaasi ayaa kaalmo fiican siiya garab istaag sidoo kale u sameeya kooxaha markay safar galayaan xiriirada wadamada waxay kaalmo fiican siiyaan kooxaha markay safar ka galayaan waxay u fududeeyaan in ay xiriir la sameeyaan xiriirka wadanka ee u socda kooxda iyaga oo u sii bandhigaya in kooxdaas ay soo socoto kooxdu waxay la kulantaa soo dhaweyn heer caalami ah waxa loo diyaariyaa goobtii degi lahayd garoonkii ku almiitay lahayd iyo sidoo kale waxyaabo kale oo tasiilaad oo kooxda ay u baahan tahay xiriirka wadanka ay tagaysa ayaana u fududeeya dhammaan arrimahaasi laakiin xiriirka dalkeena Soomaaliya kiiskaasi ama dhacdooyinkaas oo idin weyn ka indhaxeeran yahay wax shaqaana kama qabto ciyaaraha ay kooxaha kala duwan ee dalkeena Soomaaliya markay safarada dibadda u aadaan ay ciyaaraan tusaale yaraan ku soo qaato kooxda ee horseed waxay ciyaartay laba kulan hal garoon ayay ku ciyaartay ma qiyaasi kartaa sababta arintaasi sababtay waa arimo dhaqaale awgii mid sababtan keentay horseed waxay u baahneed dhaqaale haddii ay laba safar kala gasho dhaqaalaha badan ayaa ku baxaya taana waa mid caqabad ku ah kooxda sidaa daraadeed kooxda mar walba garoonkeeda labada kulan lagu ciyaaro waxay bixinaysaa qarash horseedna hadda waxay qarash ka helaysay kooxda ay la ciyaartay kulankii labaad oo ay home ahaan u ciyaaraysay horseed MCC ayaan mar kale tusaale kaaga soo qaadanaya kooxda MCC waxay ciyaartay laba kulan oo home away ah Djibouti iyo kulan ku ciyaartay kulanna waxay ku ciyaartay Rwanda gaar ahaan magaalada Kigali ka waran kooxdan markii ay ka soo baxaysay dalka Soomaaliya waxa ka baxday lacag gaaraysa 9,000 oo ah check-in ku saabsan coronavirus maadaama 2020 dunida ay si aad uga caawinaysa xanuunka faafa ee coronavirus tikidka ciyaartooyda iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee la isticmaalay marka la isku daro qiyaas ahaan sida maamulka inoo sheegeen 15,000 lacag kor u dhaafaysa ayaa ku baxday kooxdu waxay la xiriirtay oo ay la hadashay maamulka koox kale oo ka dhisan gudaha wadanka Djibouti taa oo u fudisay martiqaad si ay wadanka Djibouti u tagto hotel ay ijaaratay garoonka ay ku almiiteynaysa maalin walba qarashaad ayaa looga qaadanayay kooxdan oo lacag ay ku ijaaranaysay dhammaan waxyaabahaas marka la isku daro iyo tikidkeeda Rwanda ay mar kale ku aadaysay coronavirus checking marka la marayay ee Djibouti looga baxay hotelka Rwanda ay ka degay garoonka ay ku almiiteynayso lacag gaaraysa ilaa 100,000 ayaa ku baxaysa kooxda xiriirka waxa loo baahnaa inuu kooxda markan oo kale ka caawiyo soo dhaweyntii iyo halkii ay ku almiiteen lahayd oo ay u fududeeyaan madaxda xiriirka wadanka kaleeto waa hadii xiriiradu ay wada xiriiraan laakiin taa oo dhicin ayaa sababaysa in kooxuhu iyagu ay isdiirad saaraan iyaga koox kale la xiriiraan iyaga ay wax walba dabaashaystaan waana sababta ugu weyn ee lagu aaneyn karayo in kooxaha dalkeena ay soo haraan iyaga oo maanka iyo maskaxda ku haya qarash oo kaliya qasaare oo kaliya in ay hal mar ciyaaruhu ka dhamaadaan maadaama ay nervous iyo rafaad badan la kulmeen madaxda labada kooxood waa la xiriiray sidoo kale waxay inoo sheegeen in ay mar u jeclaan lahaayeen ama haraan ama soo baxaan in tartanka uu soo idlaado maadaama ay basiday sheegeen ku rafaadeen socodkii iyo isdhexgalkii waan filayaa saaxiib daawade inaad macluumaad kooban ka heshay sababaha inta badan kalifaya in kooxaha dalkeena ay soo haraan muuqaalkan inoo sii sheer galay like inoo saar page-keena nagu soo biirso kale waad maasantahay